Harada Anjikuni oo ku taala gobolka Waqooyi ee Nunavut, Canada, ma ahan haro caadi ah. Waxa ay caan ku tahay dhacdo daahsoon oo ilaa maanta aan si buuxda loo fahmin, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah halxiraalayaasha ugu waaweyn taariikhda Kanada. Waa sheeko naxdin leh oo ku saabsan tuulo dhan oo si lama filaan ah u baaba'day, iyadoo ka tagtay dad lama filaan ah. Waxa ayna lahayd cimilo daran, baraf, iyo deegaano qabow oo dadka caadiga ah aysan si fudud u tagi karin. Tuuladani waxaa deganaa qabiil ka mid ah Eskimo oo aad u deganaa deegaankaasi muddo dheer. Dadkaasi waxay ahaayeen ugaarsiyaqaan kalluumaysato. Sanadkii 1930kii, ugaarsade lagu magacaabo Joe ayaa safar dheer kadib gaaray tuulo yar oo ku taala xeebta harada. Waxa uu ahaa qof khibrad u leh deegaanka oo si fiican u kala garanayay dadka halkaasi ku noolaa. Waxay ahayd tuulo firfircoon oo ay ka buuxaan nolol, dadkuna ay ku tiirsanaayeen ugaarsiga iyo kalluumaysiga si ay u noolaadaan. Si kastaba ha ahaatee, markii uu soo gaaray tuulada, waxa uu la kulmay jawi cabsi leh. Ma jirin qofna, gebi ahaanba cidlo ayay ahayd. Waxa uu filayay inuu arko qiiq ka soo baxaya aqalada, carruur ciyaaraysa, iyo eeyo waddooyinka cunto ka raadinaya, laakiin waxba ma jirin. Waxa uu si taxaddar leh u dhex maray tuulada, isaga oo mid mid u hubinaya aqalada. Waxa uu arkay in dhammaan agabkii dadku ay lahaayeen ay sidoodii u yaaliin: qalabka ugaarsiga, dharka, iyo xitaa waxaa jirtay cunto aan la taaban. Tuuladii oo dhan waa bannaanayd, ma jirto qof halkaa jooga. Biyo maran, raashin jikada ku jira, dhuxul weli dabka ku jirta, xitaa saxamo cunto lagu cunayay oo weli miiska dul saaran. Tani waxay ahayd wax aan caadi ahayn, maxaa yeelay dadka tuuladani ma tagi jirin hoygooda iyaga oo aan qaadan agabkooda muhiimka ahaa. Waxay u muuqatay in dadkii deganaa ay si degdeg ah uga tageen guryahoodii iyaga oo aan waxba qaadan. Waxa ugu yaabka badan waxa ay ahayd eeyaha dadku waa ay raacayeen markay tuuladu ka baxayaan. Joe waxa uu helay eeyo dhowr ah oo dhintay oo u muuqday in ay gaajo u dhinteen. Inkastoo aqaladu ay yaaleen cuntooyin badan, haddana waxay u muuqdeen kuwo gaajo u dhintay. Sidoo kale, dhammaan rasaastii dadka tuulada ay ku ugaarsanayeen ayaa lagu arkay aqaladooda iyaga oo aan la taaban. Isagoo ay ka buuxdo cabsi iyo amakaag, waxa uu si degdeg ah uga tagay tuulada. Waxa uuna la xiriiray booliiska boqortooyada Kanada, RCMP. 2 sarkaal oo ka tirsan ayaa loo diray goobta si ay u baaraan. Baaritaankoodii ayaa xaqiijiyay xaqiiqada sheekadani. Waxa ay heleen tuulo cidlo ah oo aan wax raad ah oo dagaal ah ama qas ahi ka muuqan. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen in dadkii deganaa ay ka tageen qalabkoodii iyo agabkoodii muhiimka ahaa, taasi oo sii kordhisay daahsoonaanta dhacdadani. Sidoo kale, waxaa la helay qabriyo ay ku jiraan meydad ay waxyeello soo gaartay, taasi oo aan la garanaynin sababta ay u dhacday. Tan iyo markii ay dhacday dhacdadani, haradani Anjikuni waxay dhalisay mala-awaal badan iyo aragtiyo kala duwan oo isku dayaya in lagu sharxo waxyaabihii ku dhacay dadkii tuulada deganaa. Dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin mid ka mid ah aragtiyaha ugu caansan ayaa ah dadkii deganaa tuuladani ay afduubteen nooleyaal kale. Dadka aaminsan aragtidan waxay tilmaamaan maqnaanshaha raadka iyo habka degdega ah ee dadka tuuladu ay uga tageen guryahooda iyaga oo aan waxba qaadan. Sidoo kale, waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid ah ugaarsatadu ay arkeen waxyaabo la mid ah ufayada oo dul sabeynaya harada ka hor intaanay dhacdadani dhicin. Qaar kale waxay u malaynayaan in dhacdadani ay la xiriirto arrimo dabiici ah sida cudur faafay ama xaalad cimilada oo si lama filaan ah isku beddeshay, taasoo ku qasabtay dadku inay ka cararaan tuuladooda. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax caddayn ah oo taageeraya aragtidani. Sidoo kale, waxaa jira
Dad aaminsan in sheekada haradani ay tahay mid la buunbuuniyey waxa ay tilmaamaan oo aanay jirin warar badan, dukumiintiyo rasmi ah oo ka hadlaya dhacdadan, taasi oo keentay shaki. Si kastaba ha ahaatee, joornaalada waqtigaasi oo soo tabiyay dhacdadan iyo qoraalladii ninkani uu sheegay ayaa taageerayay in ay dhacday. Inkastoo ay ka soo wareegatay muddo ka badan 90 sano tan iyo markii ay dhacday, waxay weli sii wadaa inay soo jiidato dadka jecel daahsoonaanta iyo kuwa jecel inay baaraan waxyaabaha aan la fahmin. Waxay u taagan tahay xusuusin ah in adduunkeenu uu weli ku jiro waxyaabo badan oo aan la garanaynin oo sugaya in la shaaciyo. Sheekada haradani waxay noqotay qayb ka mid ah dhaqanka dadka ku nool Kanada, waxaana lagu sheegay buugaag, filimaan iyo barnaamijyo telefishan oo badan. Ilaa maanta ma jirto jawaab cad ah oo ku saabsan waxa dhab ahaantii ku dhacay dadkii deganaa harada Anjikuni, iyo baabi'ii degdega ahaa ee tuuladaas yar ayaa weli ah hal-xiraale aan la furin, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan uguna daahsoon taariikhda Kanada. Ma laga yaabaa in maalin uun ay jawaabtu soo ifbaxdo, mise harada Anjikuni waxay sii ahaan doontaa sir ilaa weligeed? Waxa cajiibka ah ayaa ah tuulo dhan oo dadkeedii mar qura la waayay, qabri la furay, raadna aan laga helin. Waa dhacdo ka baxsan fahamka bani'aadamka, laakiin su'aalaha weli furan ayaa ah: maxaa dhacay habeenkaas? Kaxaystay dadkii tuulada ku noolaa? Waxaa laga yaabaa in jawaabtu weli hoos ugu qarsoon tahay barafka qaraha weyn ee waqooyiga Kanada, ama ay ku jirto sir la ilaaliyay oo aan la doonayn in ay dunidu ogaato.